kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada warkii shabakada wadaagsin oo aan hadahan oo kale idiin soo tamin jirnay waa 18 bisha July qodobada ugu doorka roon ee maanta aan idiin haynana waxa kamid ah madaxweyne xaaf oo la meel u ka baxay oo war ka soo saaray xaaladda ka taagan galmudug madaxweyne farmaajo oo lagu eedeeyay inuusan rabin qabashada doorasho ka dhacda dalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shaaciyay sababta ay filla Soomaaliya garaadada sare ugu taxday taliya Saadiq Joon Professor Ali Khariif Galleer oo shaaciyay oraa oo eeday intii uu waday tabliiqa siyaasadeed wargeys shaaciyay dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo ay si hoose u wado Somaliland daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena wallan daawada hadii ay tahay markii kugu horeysay ee channelka subscribe saaro gambaleelkana daaro si ay ku soo gaaraan wax walba oo aan soo galino haatana warkii oo fidsan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa marka hore waxa uu tacsi u diray bulshada reer Gaalkacyo iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay Allah u naxariistay Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cabdiraxmaan oo xalay ay rag hubeysan ku dileen koonfurta magaalada Gaalkacyo wuxuu ahaa nin qiimo badan oo aad uga shaqeeyay nabadda magaalada Gaalkacyo wuxuu ahaa dadkii galmudug wax ka dhisay alla naxariista jannaha ka waraabiyo iyo samiri iimaan ee bahnaga siiyo ayuu yiri madaxweyne Xaaf sidoo kale Xaaf ayaa ugu baaqay bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo inay meel ka soo jeestaan dadka cadawga ku ajiritaankooda iyo noloshooda wuxuuna intaasi ku daray in kooxaha arxan laawayaasha ah aysan rabin amniga iyo nabad noqoto magaalada Gaalkacyo cid walbana ay mas'uul ka tahay amniga magaalada Gaalkacyo waa sida uu hadalka u dhigay si kastaba inta badan shacabka kala duwan ee ku nool magaalada Gaalkacyo ayaa aad uga walaacsan amni darrada ku soo korortay magaalada iyadoo aad uga xumaaday dilka xalay loo geystay Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cabdiraxmaan oo kamid ah waxgaradka gobolka Mudug madaxweyne Xaaf ayaa mudooyinkan waxa laga waayay saaxada siyaasadda iyadoo lagu eedeeyay inuu lacag ka qaatay dawladda Soomaaliya isla markaana uu isaga baxay arrimihii siyaasadda galmudug madaxweyne Farmaajo ayaa lagu eedeeyay inuusan rabin qabasho doorasho dalka ka dhacda iyadoo sanad iyo bar uu naga xigto doorashada guud ee 2020 ayaa waxaanan muuqan waji loogu hagaago iyo hanaan sax ah oo la isku og yahay taasi oo keeni karta qas kala orod iyo jahwareer marka uu waqtigu soo dhawaado ama arrinta laga cabsi qabo oo dib u dhac iyo waqti kororsi xildhibaan Saabir Shiiriyo oo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka oo arrinkan wax ka weydiinay wuxuu yiri xukuumadda federaalka ayaa mas'uul ka ah sida aad dareenteen madaxweyne Farmaajo wuxuu rabaa in doorasho aanay dadka ka dhicin ilaa hadda ma cad qaabka doorashada lagu heshiin hanaan sax ah Mr. Suuriyo oo ka hadlayay sharciga doorashada ayaa waxa uu yiri arrinta sharciga doorashada horta dastuurka ayaa khilaafsan yahay qaabka loo soo qoray shaqo in laga qabto ayuu rabaa kaas oo aan shaqo laga qaban wax hore u soconayana ma jiraan eedeymahan ayaa soo aadaya xilli sanad iyo bar un ay ka harsan tahay doorashada guud ee dalka Soomaaliya hogaamiyihii maamulka Khaatuma Professor Ali Khariif Galleer ayaa sheegay inay jirto kelmad uu eeday intii ay wadeen barnaamijka tabliiqa siyaasadeed ee isaga iyo Professor Samatar ku qabteen magaalooyinka waaweyn ee Somaliland Professor Galleer ayaa sheegay inuu eray oraahda ah Somaliland waa la wada leeyahay taasi oo dhowr jeer oo hore uu si adag uga hadlay barnaamijkii tabliiqa siyaasadeed Galleer ayaa ka dhawaajiyay in bulshada reer Somaliland looga baahan yahay inay si adag u xisaabtamaan isagoona xusan in tabliiqa siyaasadeed ay wax badan u soo hooyay siyaasadda Somaliland Professor Galleer ayaa arrimahaasi kaga hadlay khudbad uu ka jeediyay madal lagaga doodayay waxyaabihii Somaliland u qabsamay intii uu jirtay wuxuu yiri anigu waxaan daacad ka ahay oo aanan cidna u cadeynayn reer Somaliland ayaan ahay laakiin reer Somaliland iskuma wada sinna isku taariikh ma nihin laakiin yoolka aynu wada leenahay kaas ayaa inaga dhaxeeya cidna lagama sheegan karo warkii laygu cambaareynayay ma wada oranayo Somaliland la wada leeyahay waanba eedaye taasi iyada ka hadliba maayo waxaan ku jirnaa wararkii Somaliland wargeyska KCW Today oo ka soo baxay dalka UK gaar ahaan magaalada London ayaa warbixin ka qoray dadaalada Somaliland ugu jirto inay aqoonsi caalami yeesho isagoona isbarbardhig ku sameeyay xukuumadda madaxweyne Farmaajo iyo Biixi KCW ayaa soo qaatay qoraal lagu daawacay bishii hore barta Twitter-ka ay ku leedahay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya kaasi oo Somaliland loogu adeegsaday ereyga dal midaas oo wargeysku ku macneeyay inay tahay markii ugu horeysay ee waddan ka mid ah caalamka oo Somaliland u qabsado dal madax bannaan sidoo kalena wuxuu wargeysku isbarbardhig ku sameeyay dawladnimada iyo ammaanka ka hirgalay Somaliland iyo nabadgelyo darrada iyo burburka ku habsaday Soomaaliya isagoona ka marxaati kacay wargeysku in Somaliland gabi ahaanba ka duwan tahay kana badbaado mashaqada ka jirta Soomaaliya KCW Today wuxuu intaas ku daray in Somaliland oo madaxweyne ka yahay Biixi oo hore u ahaan jiray duliye ka tirsan ciidamada cirka waxa kale oo wargeysku xusay in Somaliland ay leedahay ciidamadeeda booliska iyo lacag u gaar ah
wuxuuna xusay wargeysku inay Somaliland qaatay tallaabooyin diblomaasiyadeed oo ay wada hadallo kula yeelato qaramada midoobay, Midowga Afrika iyo dalal ay ka mid yihiin UK iyo Mareykanka. Wargeyska KCTW ayaa ugu dambeyntiina wuxuu warbixintiisa ku sheegay haddii Kenya ay hormuud ka noqoto aqoonsiga Somaliland inay tallaabadaasi noqon doonto mid xiiso leh oo lagu soo qaadi doono shir madaxeedka Midowga Afrika ee lagu wado inuu qabsamo horaanta sanadda 2020. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shaaciyay sababta ay filla Soomaaliya garaadada sare ugu taxday taliya Saadiq John. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa si adag ugu naqdiyay munaasabadii xalay uu taliyaha booliska Soomaaliyeed ku dallacsiiyay taliyaha booliska gobolka Banaadir iyo taliyayaasha saldhigyada booliska gobolka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in Saadiq John uu ka mid ahaa taliyayaasha xalay la dallacsiiyay u geystay xasuuq ka dhacay xarunta xisbiga wadajir oo uu ku dilay 5 askari oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka. Cabdiraxmaan ayaa tallaabadan lagu dallacsiiyay Saadiq John ku tilmaamay sida maamulka filla Soomaaliya ka taliya ugu aradan yahay dowladnimada iyo damiirka dadnimo. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa arrintaasi kaga hadlay qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook, isagoona sheegay in sawirka abaalmarinta lagu guddoonsiiyay Saadiq John ay marqaati fur u noqonayso gabadfalka xasuuqa ka dhacay xarunta xisbiga wadajir. Wuxuuna yiri waxaan ummadda Soomaaliyeed wada ogsoonahay in wiilka garaadaha sareeya guuta caawa loo xiray oo xasuuq ka geystay xarunta xisbiga wadajir oo uu 5 askari oo ciidanka xoogga dalka ka tirsan ku dilay, meydkoodiina kabaha ku aasay. Tani waxay caddayn u tahay in kuwa abaalmarinta siinaya iyo kuwa kor ka soo amray ay dambiga shirko kula yihiin, waxayna shacabka Soomaaliyeed tusaysaa sida uu rajiimka filla Soomaaliya ka taliya sharci dowladnimo, damiir iyo dadnimo kaga aradan yahay. waxaan kalsooni ku qabaa in wiilashii la xasuuqay marba ay noqoto ay cadaalad heli doonaan, sawirkanana uu marqaati fur u noqon doono gabadfalka xasuuqii uu rajiimka filla Soomaaliya ka arrimiye geystay. daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena. inta aan warkan iyo war ka xiisa badan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.